السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو صار نقد ونكسن ولا للمانتا وحن إذن هيا 10 آد وقابن آد وقابن لكن آد وحي السلاء وباللغة معناها إيشيك الفابتك مع اللغة ده برك لبدا اللغة ده هلكا أنكو هيا English and Somali ويان لبا الفابت نسيرو دي سان مرة بسو سمي ground the letters ريغا داف ground the letters English alphabet بان هرمري maadaama هذا موضوع عن بران إنه English يعني كا هرمرنيا marka ground letters ground waa dhulka ground dhulka letters xarfaha dadis waxa la wadaa xarfaha hoos u hoobta ground letters af Soomaali ku dhaysa riiga dhaaf ku riigada dhaafa tanis markii oo sadarka buuga labada xariiq ee isgarab socota dhexdooda aad farq ku qorayso oo dhaxmarayso marka aad qoranayso xariiqa kore iyo kan hoose dhexdooda macna kan hoose dushiisa waliba ayaa laga bilaabaa xarfaan xariiqa labada xariiq mid ka hoose dushiisa laga bilaabaa sida adoo a ama e qorayo kale markaas hoos loo dejiyaa xariiqaas dushiisa ka bilaabaysa hoos u dejinaysa waa kuwan dhamaantood ground letters xarfaha dhulka aada weyn hoos u hoobta annagana waxaan leenahay riiga dhaaf riigadii ama sadarkii bay dhaafaan baan leenahay marka waa sidaas insha Allah taala English alphabet marka aan idhaha F waa ground letters F G J P Q Y F G J P Q Y af Somali waa riiga dhaaf riigada waxa laga labada xariiq ee macnaha sarka dhexdooda labada xariiq mid ka hoose waliba dushiisa ka bilaabaysa hoos u dejinaysa riiga dhaaf waa ja ج ف ق ي ج ج ف ق ي marka annaga ayaga waa 6 f g j p q y waa 6daas marka annagana waa 5 waa j g f q y weeyaan marka annaga maxaa naga maqan p dan anaga noogu jirin p nooguma jirta f g j markaas p da noogu jirtaan ay inta kale anaga ugu jirtaa shantan kale noogu jiraan laakiin p daas ay noogu saacidiyeen ana ka dheerinayga marka insha Allah taala xarfaha marka waxa la radaa xarfaha مثلا riiga dhaafka ah ama ground letters ka loo yaqaan marka waa markii fatartii shal aan ku sheegay maad aan ku sheegay si fiican qorto waa habayso first uniform oo isku habaysan oo qurux badan bay noqonaysaa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.